Somaliland waxaan leeyahay cod dheer ku leeyahay ha ismahadinina xamar waxa dumiyay cuqubadii uu Hargeysa ka galay waxaan xasuustaa ninka raba inuu guri dhisto ama raba inuu wax tabcado in la yiri ayadoo la dhihi jiray markii adinka leedin burburinaya dhibaatada idinku socotay siyaasaddu ay xagal daacisay waxa la dhihi jiray war iska daa maxaa Dubai iyo ku falaysaa meeshan waxa weeye jiingada Hargeysa iyo alwaaxda looxaanta laga soo qaadaad guriga ku dhisanaysaa ummadda isdaba qaban weyday koonfurta waxa dumisay cuqubadiini waxaan xasuustaa shaqaalaha waxa la dhihi jiray kuwan xabadu keentaya gabdhahan xabadu keentaga beesaha laga dhigto war waxaan idin leeyahay aqliga shaqay waayay shalay koonfur shaqay waayay wax idin ku dhacay haba yaraatee marka loo fiiriyo dhibaatada ku dhacdayna wax idin gaaray malaha xaqiiqatan koob iyo 20 sano shacabka Soomaaliyeed oo koonfurta ku nool walaalihiina oo innamal mu'minuuna ikhwa walaalka waxa weesh salaadad aadin waxaad u baxaysiin masaajidada aadin waa cibaadaysanaysiin intaas waxa weeye walaalihiina rafaaday ee koonfurta aha ee adinka oo maskaxdii ah 7 weeye juqraafiga Soomaaliya marka la fiiriyo number 7 weeye waa number 7 adinka oo madaxiya maalinta ka go'deen masiibadii ku dhacday 24 saac waa la qarxinaya dhibic wixii hatta haduu anaga dhibkii caamka aha ee aad ka tirsanaysiin dawladda dhaxa haday baxday walaalayaal weeloor baa noo baxay waxa noo baxay Mooriyaan Gareey waxa noo baxay waxa aad ogeydeen waxa noo baxay nimanka aad u jeedin 24 saac nala qarxinaya waxaan idin leeyahay walaalayaal noo naxa waxaan idin leeyahay ismahadinina waxaan leeyahay taariikhda wax ku qaata waxaan idin leeyahay Soomaaliya sanaag iyo inta aad u waxaynaysiin wax dhibaato ka weyn oo baaxad leh oo wadnihiina ku faafaysa ee cadow soo jireeniyo caruurtiina af Soomaaliga la barayo diintii la barayo juqraafikada wadankiina la kala baraya idin ku faafaya jaamacadaha idin ka dhaxdhistay aad waqtiga muqaabaraad idin ku dhaxsamaystay walaalihiina dariska idin ah waxa la idin ku faaniyaa inaad garasho badan tihiin dagaalka xarbiyeerka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuba dhasho waxaan abbiin idin kaga ahay walaalayaal inaad joojisaan Cabdiweli waxaan u sheegayaa oo aan marqaati ka ahay Cabdiweli caleemasaarkaagii media laygama arag laakiin waad ogtahay Ilaahayna waa ogyahay inaan fadhiyay waxaan uga soo bixi waayay laga heesoo la qaado lagu guubaabinayo Somaliland iyo Abu Anaan jecelahay ayaa afka furteen oo la yiri Soomaaliya sanaag waa la gumeystaa markaan arkay meesha uu midiyay la sanayso ayaa media iska gaabiyay waxaan ubaa hamigaagu inuu ka weyn yahay Puntland waxaan ogahay aqoontaadu inay ka weyn tahay waxaan abbiin idin kaga ahay oo aan idin ka rabaa macna mala walaalka miir naag mala magaalada labaduba markay ka marshaan moodka iyo noolka lama moodo inaad maalin gura meel ku kulanteen adiga oo miiga la sheekaysan adiga wax magaratada la sheekaysan midee ra'iisul wasaaraha soo martay madaxweynaha wallahi rabta waa kula rabnaayo badbaadada Soomaaliya hadii ilaa wadal uu idmo waxaan aaminsanahay laba Cabdiweli iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari inay tahay hadii Ilaahay Soomaaliland inta noo soo hanmiyo midnimada ay qaataan oo maanta ayaga xaqqa sharci gumeysa saarana ay Ilaahay noo soo hanmiyana iyagana wax badan baan ka filaynaa sababtu tahay saddex ayaga xumaan isku raacdo waxaan ku leenahay ha qaadan min reemiga colaadooda waxaan idin leeyahay colaada walaalayaal joojiya walaalayaal dalka waa la qaadanaya wallahi wadanka waa la qabsaday in daadka isqodob la yiraahdaa lagu qaatay wallahi inuusan kuwa maamulaya gacanta ugu jirin wallahi inaad ogtihiin shacabka ha isku dhameynina iqra kitaabaka kafaa binafsika al-yawma alayka maalinta ilka la idin dhigo qiyaamaha maalinta ilka la idin dhigo ummadda ilaahay waxa la hortagi lahaydeen maanta ku kaalmaysta siyaasadda aad maanta haysatiin Cabdiweli iyo Axmed Maxamuud Jiilaanyow waxaad kasbi kartiin inaad SWL noqotiin 60kii inaad noqotiin Soomaaliya inaad ku soo celisiin bale hadaad idinku isku soo goryo noqotiin ee aad maanta Soomaaliya sanaag awadeed isku baabiisiin annaga Ilaahayna way kugu caroonaya shacabkana intii la rabay ahayd annaguna inta ooyaysan ka mid noqonayna Allahumma ballaqtu waan idin sheegay waan idin ka codsanaya waxaan idin ka rabaa dagaalka maanta inta ka dhacay shalay Soomaaliya sanaag kuma faraxsanin Soomaaliland ay godobtii shalay laga galay maanta ha sameeynin wax diiday oo wadin wax kale ka doorbiday wixii doonayaan jirin baa liir hadaa sharci cadaalad darro ka qayliseen maanta cadaalad darraha sameeynina hadii kuwa maamulka sheeganaya in kala baqeena anigu siyaasi ma dhig joojiyanahay anigu waxaanahay Allah subhanahu wa ta'ala maalintan hortago wixii aan waxaan u arkaa
inaad midigtayda iyo bidixdayda aatiin waxaan idin leeyahay walaalayaalow xalaqka labadiinuba waxaad ku caqliga Soomaaliga waxaad Soomaaliya ugu qiimaysnaydeen inaad tihiin meesha siyaasadda عقلي سوماليات إن تين سياسة إن تدوك وجوريسين إن تقانين وحنا نقعد سنة يا إن كلا فريستو بتلان يسومالي لان أي حل وحكوا هذيان أنا حبض راهو بيكور ربي مركز يري برضه كثير واحد اللي جمع ما هنا واحد دي دجال وشرف ليه هاي هدي إدي كديد ما يكداد ما شرف ليه هاي وركوفرت كفيرية وردي هذا يرتاح جرينكا ولا لا يالو دبا نجيل منا ولا لا يالو من دلي من لو دلان داود لينين ورمين الدلي من لو دلان داود لينين وروح أنا نقعد سنة يا اتقوا الله والله يبغى من ماذا نكون واحد يكون متدا